muwaadin dhiig shub si aad naf u badbaadisid dhiigga ugu deeqa cisbitaalka Gabiley halkani oo cisbitaalka weyn ee magaalada Gabiley waxa saaka laga daafuray barnaamijka ololaha dhiig shubista iyo dhismaha kaydka dhiigga oo saaka halkani laga daafuray barnaamijkan dhiig shubista ayaa markii ugu horeysay ee laga hirgeliyay cisbitaalka weyn ee magaalada Gabiley waxaana xafladani dhiig shubista ahayd ka soo qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley iyo maayarkooga iyo barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Deeriye ugu horreynna waxa halkaasi ka hadashay agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Gabiley oo ka warbixisay ahmiyadda uu leeyahay in dhiigga la shubaa waxaan anagu alxamdulillah leenahay ka hospitaal ahaan in noo suurto gashay inaanu yeelano bangiga dhiigga oo aanu ka warwarin wax dhiiga marka ay soo dhacaan shilalku iyo marka ay u baahato hooyada iyo cid walba oo dhiig degdeg u baahata marka maxaa la yiraahdaa waxaan dhammaan dhalinyarta iyo waayeelka iyo cid walba oo candidate oo inay dhiigga shubaan waxaan ku tixgelinaynaa ama aan ku boorinaynaa inay noqdaan qaar nagu xiran oo maxaan ku raahdaa dhiigga si joogto cisbitaalka guud ee Gabiley qaybtiisa bangiga dhiigga ugu xiran geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley iyo duqa degmada Gabiley waxaana yiraahdeen maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo halkan laga daahfurayo ololihii dhiig shubista ugu horeysay gobolka Gabiley laga sameeyo haddii ay tahay hooyo umulasa hadday tahay qof sida kale oo xanuunsaday oo dhiig la'aan ku dhacday iyo hadday tahay shilalka inagu badan gobolkeena waa ka warqabtaan 24 saac ama 48 saac u dambeeyay inuu ugu yaraan ilaa 4 shil ay gobolka ka dhaceen taasi oo keenta had iyo jeer in dhiig degdeg loo baahdo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa agaasimaha guud iyo shaqaalooyinaha cisbitaalka barnaamijkan dhiig shubidda ay noo soo diyaariyeen waxa noo farxada in aanu maanta aanu halkan ka bilowno ama ka daafurno dhiig shubistii la shubayay ee gobolka Gabiley cisbitaalka Gabiley uu fulinayay taasoo ay dadweynaha reer Gabileyna aanu leenahay baahi weyn ayaa loo qabay waxaan leeyahay khayrkeeda hayna waafajiyo hawshan aynu isugu nimi waxaan filayaa waa dhiigu waa waxyaalaha ugu khayrka badan wax la qabto marka xagga caafimaadka la eegayo oo de waxaad u gargaaraysaa qof xaaladiisa adag tahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa isduwaha caafimaadka khaasatan agaasimaha cisbitaalka oo hawshan badankeeda iyadu iyo hawsheeda intii ay dhakhtarka timi ay hirgelisay taasina waxay inoo tahay inaga dadka shubaya dhammaantood waxay u tahay faa'iido weyn ha loo arko qofku hadduu arkayo inuu cid u shubayo hadduuba ka baqayo ha u arka faa'iidada isaga ku leedahay si kastaba haatee barnaamijkan saaka laga daafuray cisbitaalka weyn ee magaalada Gabiley ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee laga daafuro gobolka Gabiley waa maxamed cabdi cumar maxamuudiin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley